kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ergeygiisa aan ahay oo arrintan markii uu maqlay in dhalinyaro Soomaali oo doon saaran ay doontii ku jabtay badda gudaheeda ayna ku xaniban yihiin dalka Madagascar go'aan degdeg ka gaaray in aan hay'adaha kala duwan oo dawliga ay ka wada shaqeeyaan sidii dadkaas dalka dib loogu celin lahaa waxayna qaadatay waqti yar waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha oo arrintan si gaar ah uga danqaday maanta waad aragteen dadka charter flight ayay ku imaadeen kaasoo dowladda Soomaaliya ay bixisay gaar ahaan madaxweynaha amray marka taasna waxay tusinaysaa inay dowladda Soomaaliya ka go'an tahay in aan u gargaarno dhalinyaradeenna tahriibaysa oo wadamada dacaladooda ku xaniban ama ku xayiran inaan markasta diyaar u nahay in aan raadino aan baadi goobno oo sidaan oo kale dalka ay dib ugu soo noqdaan marka waxaan leeyahay dhalinyaro inaga dhimatay inta dhimata Allaha u naxariisto intii hadda dalkooda maanta ku soo noqotayna waxaan leeyahay ilaahay garabkiina ha galo dawladda garabkiina waaye xafiiska madaxweynaha waa garabkiina madaxweynaha sida waa garabkiina wixii kaloo loo baahan yahay ay dadkan soo noqdaan u baahan yihiin diyaar ayaan u nahay ka xafiiska ergeyga gaarka ahaan inaan maxaa lahaa wixii loo baahan yahay arrimahan ka qabanno adiga 47 laakiin waa aad hubin kartaa in oo 26 oo kalena waa ay dhinteen Allah u naxariisto intii baxdana waxay ahaayeen 70 ka badan maanta intaas soo noqotay laakiin saad ay warbaahinta qaranka ula socoto khamiistina waxaa dalka dib loogu soo noqday 161 dhalinyaro oo Liibiya ka soo noqotay 15 bishaana insha Allah waxaan soo noqi doonaa ilaa 170 dhalinyaro dalka Liibiya Commissioner Safia waxay idin sheegi doontaa inay dooman aan ka sugayno dalka Liibiya waxa ugu muhiimsan aan rabo halkaan inaan meesha ka sheego waxa way farxadda waxaan aad iyo aad ugu farxa inaan arko iimaanka ee ciyaalkan qabaan ee leeyihiin alxamdulillah